sidoo kale ciidamo dheeraada laga dejin doono gobolka kuwaas oo bilaabi doono guluf ka dhan ah maamul goboleedka Jubbaland. qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo ayaa haatan laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan waxaana soconaya abaabul ay iska kaashanayaan dowladda dhexe iyo saraakiil gobolka ku sugan. Jubbaland oo ka warheshay dhaqdhaqaaqan ayaa iyaduna soo saartay war-saxaafadeed waxaana ay eedeymo culus u jeedisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay ku tilmaamtay in ciidamadii loogu talagalay amniga in uu u adeegsanayo siyaasad si uu markaasi qalqal amni u abuuro. degmooyinka gobolka Gedo ayay xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa mar kale isku dayayaan in ay ka abuuraan qalalaaso amni taas oo keeni karta in amnigu uu faraha uu ka baxo maadaama saraakiishii loogu talagalay in ay sugaan amniga markaasi loo adeegsanayo dana siyaasadeed ayaana lagu yiri warka qoraalka ay ka soo baxay maamulka Jubbaland. waxaa kaloo la sii raaciyay ciidamadii loogu talagalay in ay ilaaliyaan nafta maamulka iyo amniga shacabka Soomaaliyeed ayay eedeysana xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa waxay u adeegsanayaan in ay ku dumiyaan nidaam dawli ah oo dhisan mana ahan wax dastuurka dalka uu qabo ayaana sidoo kale lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay maamul goboleedka Jubbaland. sidoo kale Jubbaland ayaa waxay sheegtay in beesha caalamka u dirayso fariin la xiriirta tallaabooyinka qaldan oo ay qaadayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. toddobaadkii hore ayaa magaalo xeebeedka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. dagaalkaasi oo looga adkaaday ciidamada dowladda sidoo kalena sababtay in markaasi laga tallaabiyo xuduuday wadaagaan Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaan ilaa haatan aanan jawaab ka bixinin ciidamada ka tallaabay xadka hase yeeshee saacadii la soo dhaafay ayay dowladdu waxa ay bilowday in ay dib u soo daabusho ciidamadii u gudbay dhinaca waddanka Kenya iyadoona sidoo kale diyaaraddii ugu horreysay maalinimadii shalay ahayd laga dejiyay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho. barnaamijka xogta Hiiraan Weyn ayaa dhageysanaysaan dhageystayaal warbaahinta Hiiraan Weyn waad nagala socotaan FM-ta 9 magaarta siyaasi toos ah nooga maqlaysaan. markan haddii aynu eegno dhinaca iyo magaalada Ceeri Gaabo ee gobolka Sanaag dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada SCC Khartoum iyo sidoo kale kuwa maamulka Somaliland ayaa maalintii saddexaad waxa uu ka dhacay gudaha magaaladaasi. dagaalka ayaana xooggiisa galabta waxa uu ka dhacay gudaha magaalada Ceeri Gaabo ee gobolka Sanaag waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac. dhinacyadii halkaas ku dagaalamay ayaana caawa la soo warinayaa in ay gudaha magaalada isku hor fadhiyaan iyagoona sidoo kale markaasi ay soconayaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyo gurmadyo kala gaaraya dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya. maalinimadii shalay ayay ahayd markii Somaliland ay xabsiga u taxaabtay guddoomiyaal saraakiil ciidan odayaal dhaqameed iyo mas'uuliyiin kale oo bulshada magac ku dhex lahaa kuwaas oo ay Somaliland ay ku eedeysay inay hurinayaan dagaalka ka soconaya gudaha magaalada Ceeri Gaabo ee gobolka Sanaag. inkastoo Somaliland ay mas'uuliyiintaas ay xirtay si ay xal ay ugu hesho dagaalka gudaha magaalada Ceeri Gaabo ayaa haddana ilaa haatan xal rasmi aanan loo helin. waxaana markaasi dagaalkii galabta halkaasi ka dhacay la soo warinayaa in la kala qabsaday maxaabiis iyo markaasi gaadiid dagaal iyadoona markaasi dagaalku uu soo gaaray ilaa gabaldhaci galabta. waxaa sidoo kale markaasi caawa la soo warinayaa in dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay weli ay ka soconayaan gudaha magaalada Ceeri Gaabo ee gobolka Sanaag oo ay wadaan ciidamada Somaliland iyo sidoo kale kuwa SCC Khartoum.
dagaaladii labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka soconayay gudaha magaaladaasi ayaana la sheegay inay ku geeriyoodeen ku dhawaad 10 qofood oo dhinacyada dagaalamay ah halka tiri intaas ka badan ay ku dhaawacmeen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baaq nabadeed waxay u dirtay dhinacyada ku dagaalamaya gudaha magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag رئيس الوزراء هوري Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee wadanka iyo sidoo kale dagaalka ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qaaday maamul goboleedka Jubbaland Saacid ayaa waxa uu sheegay in Jubbaland aysan ahayn inay dowladda federaalka Soomaaliya ay weerar ku qaado balse arrimaha jiro ay tahay inay wada hadal ay markaasi ku dhameyso waxa sidoo kale uu sheegay haddii aan laga hortagin dhibaatooyinka kala duwan xilligan ka jira dalka in ay keeni karto khalalaas siyaasadeed oo wadanka ka dhaca sida uu sheegay Saacid 2000 ilaa maantayto oo laga joogo 24 sano wali waxaanu nahay dawlad nugul ma aanu gaarsiisanin dawlad adag oo mas'uuliyadeeda iyadu gacmaheeda ku haysata dalkeeda maamusha ka gees iyo ka gees runtii waxa weeye waxa dhaawacan midnimadeennii baa dhaawacan oo waxa weeyaan midnimadeenu rasmi uma shaqayso taa ka sokow xuduudeena Soomaaliya waxa ilaaliya sharciyada caalamka oo adduunka lagu ilaaliya laakiin ciidan aanu leenahay kuma aanu ilaalino dastuurkeennii oo wax muhiim ah wali ma dhamaystira haddana qaabka lagu dhamaystirayo heshiis Soomaali kuma ah oo waxa laga yaabaa hawl kale iyo maxkamad wax kale inay bilaabaan maxkamadihii constitutionalka oo dastuurka dawladnimada calaamaadkeeda waxa kamida sareynta sharciga maxkamadihii ay ahayd in dastuuriga ahaayo marka la bilaabo shaqada inay number 1 ahaadaan ahayn sida maxkamadda dastuurka oo kale nooma dhisma marka intaasoo hawlood waanu leenahay intaa haddaanu ka sii badino siyaasadii ma degana oo heshiis Soomaali siyaasadda maanta kuma ah waa la socotaan Puntland xiriir shaqeeya lama laha dawladda dhexe xiriirkaasi waa dansan yahay sidoo kale maalin waqti aan dheerayna Jubbaland ayaa gooysay xiriirkii siyaasadda oo shaqeynahay iyo wada shaqeyntii kala dhaxaysay dawladda Soomaaliya labaduba waa nasiib darro in aysan jirin xiriir siyaasadeed oo ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada intaa haddaan ka soo tago amniga waxa weeye muwaadinka Soomaaliyeed sidaan jeclaan lahayn ama taariikhda iyo dawladnimada aan ku soo aragnay uma sugna runtii waxa weeyaan hubku wadanka waa ku baahsan yahay haddii la fiirshana dadka xamartay waa garan karaano meel aan madaxtooyada daqiiqada u jirta yaa waxaa ka jira suuqyada ugu waaweyn oo hubka lagu galo sida hubka suuqa cirtoogta cidii taqaanaa waa garanaysaa cirtoogta wuxuu u jiraa madaxtooyada wax yar oo aan ka badnayn marka halkaas waxaad ka arkaysaa amnigeenu wali weeye waxaad kaloo arkaysaa systemka canshuuraha dawladda ma sugna deked walba qofka iskale dadka degani dakhligoodana ayagaa leh siday doonaan bayna u maareeyaan waxyaabaha dawladnimada lagu yaqaano waxaa kamid ah canshuuraha midaysan waa calaamaadka dawladnimada bay ka mid tahay
amniga midaysan waa calaamaadka dowladnimada canshuuraheenu ma midaysna haddaad dekedaheena meesha u sokaysa ilaa iyo tan u shishaysa aad gaadhay tariifku waa galagooni waaye meeshii si qof kasta siduu doono u qaataa meeshuu doonana waa geeyaa sidaas sidii dowladnimo lagu aqoon jiray ma aha taa ka sokow waxa weeye corruptionka oo ah waxa ugu xun oo ummad wada jirta magaca ugu xun oo dowladnimo u daranna keena waddankeenu wuxuu caan ku yahay adduunka marka la fiirsho Transparency International waa hay'ada ka shaqeeya sida levelka caalamku sida uu yahay iyo corruption levelka sheega waddankeenu sanadadii ugu dambeysay meesha u sarreysa corruption haddii la fiirsho yuu gaaray haddii corruptionku badan yahay dadku waa ka jawaabaan haddiidaba dowladda kalsooniday kala laabtaan haddii marka dowladda aan kalsooni la siinin waxaad arkaysaa dowladnimada aad arkaysaa waa shaqada dowladda oo lagu kabay kalsoonida dowladda haddaan kalsooniyu jirinin wax badan ma noqonayso corruptionku aad buu noogu waxaysan yahay waxaa soo haray xukun wanaagga iyo dimuqraadiyadda dowladaha waddankeena dhowr sano marka la joogaba doorasha ka dhacda laakiin haddaan in yar gadaal idiin celiyo tusaale haddaan fiirino 2011 waxay ahayd in doorasho ka dhacdo waqtigii ay dhacday muddadii lagu muddaysnaa bay ahayd 2011 doorasho ma dhicinin waxay dhacday 2012 bay dhacday haye ballan baaba lagu galo dastuurkay ku taallaayo 4 sano iyo waqtigii la midka maxay ku dhacday waxa weeye waxa dastuurka noogu yaala iyo waxa duqu damco waxa xoog badan waxa duqu damco xaqiiqatan sidaasina dowladnimo maaha doorashadii muddaysnayd 2011 waxay dhacday 2012 duruuf kasta hala siiyo laakiin dadku hadduu ballamo oo dowladnimo jirto waa inay sideeda ku dhacdaa ka soo qaada Mareykanka oo waxa weeye waqtiga loogu talagalay in wax isbedelaan aan doorasho dhicin maxaa ka dhici lahaa waxaan aqoon iyo dhibaato iyo fawdo iyo dhibaato 2011 doorashadii la filayay waxay dhacday 2012 tii la filayay 2016 inay dhacdana waxay dhacday 2017 hal sana lagu daray maxaa loogu darahayaa ballan baaba jira qofku hadduu baaba lagu dhaartay kitaab baaba gacanta la saaray haddaan kitaab gacanta xataa la saarin ninka mas'uulka ah ama qofka wiil iyo gabar midku doonaba ha noqdee waxa lagu heshiiyo waa inuu sidooda uga soo baxaa maxaa sanad iyo laba iyo in laga bariyo maxaa keenaya waaba constitutional arrintan waaba ku dhaaratayba dad baa ku heshiiyey dowladnima ku socota ma dhicin marka 11 tii la sugayay 12 bay dhacday 16 tii la sugayayna 17 bay dhacday 21 tii la sugayayna 22 bay dhacday hadda mid kala waxa la sugayaa 26 waxa dhici karta in la yiraahdo 2 sano ama hal sano gadaal loo daro war sidaas dowladnimo laguma noqdo sidaas dowladnimo laguma gaaro sidaas kalsoonida ummadda laguma helo sidaas dad iskuma raaco dad wuxuu isku raacaa qowl cad iyo constitution iyo wax la isla garto oo sida ay tahay loo fuliyo taa ka sokow argagixisada dalkeena inta dowladdu haysato iyo inta ay ku amar ku taagleeyaan oo say doonaan ka yeelaan waxaad moodaa inay isku yara dhow yihiin marka dowladda mas'uuliyadeeda amniga uu yahay oo argagixiso ku dhex nooshahay waa nasiib darro waa ka gudbi doonaayo taas ma rabo inaan aad uga faalloodo waxaan rabaa inaan howlaha gaarka noo ah oo Soomaaliya aan in yar oo ku daro oo nagu cusub wiigi haddana dhaafay waad ogeydeen waxa weeye
idaacadaha iyo caalamka waa la soconnay laba arrimood oo rasmi ahaana waaweyn baa dhacay waxaa dhacay kulankii Ankara ee Turkiga ka dhacay iyo Ras Kamboni nasiib daradii ka dhacay labaduba waxay dhaceen wiigii hadda nasoo dhaafay runtii waxa weeye annagu dal baanu leenahay daris baanu leenahay midnimada iyo wadajirka dalka in la sugo baad buwaagteena ku qoran annaguna aan sugaynaa MOU-gi waxaa lagu dhammaynayaa win-win situation hal wada guulaysto haddii hal wada guulaysto soo tan anigu malihi tan anaa leh waa rajaynayaa in maaragtay marka naloo sharxo wax aan ku qanci karno ay soo baxaan laakiinse runtii haddii win-win solution wax walba laga raajo waxyaabaha qaarkoodna darisnimada waa la wada leeyahay waxna waa la kala leeyahay waxaan rajaynaynaa siday ku qurux badan tahay inay ku dhammaato waxaa soo haray Ras Kamboni dalkeena waxaa ka jiray laba dagaal oo aan weli dhammaan dagaalka argagixisada lagula jiro iyo dagaalka sokeeye oo qabaa'ilka Soomaalida dhexdeeda mara labadaas dagaalba sanadadii la soo dhaafay caadi bay ahaayeen oo waa jireen hadda wiigiina soo dhaafay waxaa ku soo darmaday dagaal saddexaad oo ah dagaalka dawladda federaalka iyo member stateska ka dhaxeeya waa mid cusub waxaad moodaa meeshii la rabay inay soo yaraato dagaalada iyo dhibku inuu soo kordhayo baad moodaa dagaal noociisu nagu cusub yahay yimid marka waxaa laga yaabi karaa waqtiyada dhowna inaanu aragno dagaal u dhaxeeya dawladda federaalka iyo koonfur galbeed ama se aanu aragno dawladda federaalka iyo Hirshabeelle is haysata ama aanu is aragno dawladda federaalka iyo Galmudug oo is haysta ama se dawladda federaalka iyo Puntland oo is haysta mar hadday wuxuu bilowdeen meel ad waa dagaal ugu baho noociisa anaan aqoon jirin dagaalka argagixisada waa naqaanaa dagaalka sokeeyana waa naqaanaa laakiin dawladdii dhexe iyo federal member state dagaal ay isku hayaan waa ugu Allah naga baajiyo oo inuu naga sii hagaago yaan jecelahay waa waxyaabaha cusub intaas hore oo aan sheegahay haddaanu waqtiga u dayno ama se aan ku samirno inay naga yaraadaan baa la rabay laakiinse hadda waxaan ugu bilaabanayaa wax kale oo ugu waho dib u dhac iyo dhib keenaya haddaanu u dulqaadanay in doorashadii waqtigii la simaynayay waqtiga odagu garto inay noqoto ee waqtiga sharcigu garto aysan noqonin haddii ay nagu soo baxdo dagaal cusub oo waqtigiisa aanaan noqonin ayadana waa dhibaato waxaasoo dhani waa waxyaabaha duruufuhuna keeneen oo u gaarka ah dalkeena waxaan rajaynaynaa in ay horumar iyo wadajir aynu uga badbaadno taa haddaan ka gudbo waxaan rabaa inaan ka tago annagu waxaanu ka tirsanahay gobol la yiraahdo geeska Afrika wax kasta oo bini aadamka ku adagi marka waqti la gaaro waa la fududeeyaa waana la bartaa gobolkaasi wuxuu ka mid yahay caalamka meelaha ugu dhibka badan ugu abaaraha badan ugu dagaalada badan ugu khilaafaadka badan waase laga shaqayn karaa horumar waa gaari karaa dadku waxyaabaha ama hal dawlad ha noqdo ama koox wada noqdeen waxyaabaha ay wax ku bedelaan waxaa ka mid ah iskaashiga iyo waqtiga cusub oo la fahmo waxa uu keeno runtii waxa weeye geeska Afrika hadda waxyaabaha bedeli kara waxaa ka mid ah oo aynu rajada iyo xoogaba inaan saaro ay ka mid tahay ganacsiga isu socodka dadka iyo badeecooyinka iyo rajooyinka ka imaanaya teknolojiyada horumaraysa gaadiidka isdhex socodka waxyaabahaasoo badan yaa hadda adduunkii gaaray waxay marka noqonaysaa distance-kii awal muddada jiri wuu isku dhowaanayaa dadkiina isku daray noqonayaan haddii dadku iskaashado isdhex maro
amniga sugo dhaqaalahooda iyo rajadooduba way fiicnaanaysaa tusaale oo kale maanta adduunku si usan awal isugu xiraan jirin oo kale yuu isugu xiran yahay haddaad damacdid Washington DC iyo dhuusamareeb inaad wacdid waa isku mid weeye telefoon aad qaadid baa kaa xigta mararka qaarkoodna haddaaba damacdid inaad dhuusamareeb lacag u dirtid iyo meelaha qaarkood inay haddaan dhuusamareeb fiicnayn inay isku dhow yihiin yaa dhici karta mar haddii teknolojiyadii gaadiidkii isku xirkii dadka iska warqabkii uu saa u kordhay waa in istisaamayntaas looga faa'iidaystaa inay horumar dhaliso horumarkaasna waxa weeye adduunkii wuxuu ka dhigahayaa runtii waxa weeye tuulo yar oo isku xiran mar haddii maanta intaad ka soo baxdid xamar aad tegi kartid intaas oo Yurub aad mari kadib oo maalinka ku xiga ka qabayn kartid Mareykan oo sidoo kale aad laaban kartid adduunka waa isku dhawaaday marka waa in amnigiisii iyo xisaabtiisii la hormariyaa maxaa yeelay sida wanaaga la isugu gudbiyo yaa xumaantana la isugu gudbin karaa marka waa muhiim hadduu caalamkii noqday meel isku xiran oo kala dheerayn oo gaaristiisii iyo maqalkiisii iyo isku xiraantiisii in amnigiisana laga taxadaro waa muhiim runtii dadka Soomaalidu waxay ka mid yihiin communitieska ugu badan oo degan geeska Afrika si kasta ha noqotee waabay maanta waa faa'iido badan haddii aad runtiina sida dadku isugu xiran yahaan weli tusaale ka wada haddii xamar wax sani ka socdo ama wax adagi ka socdaan saameyntooda Djibouti Jigjiga Garissa xamar waa la garanayaa hadda qofkii xukun fiican ama dib ka geysta xamar ama si kale ka geysta reactionka intaas oo aan sheegahayo dad Soomaali ah waxaa laga yaabaa waa isku mid maanta Soomaaliya runtii marka la fiiriyo kuma kala maqna nacayb ay Soomaali isu qabto kuma kala maqna waxay ku kala maqan tahay Soomaali cadaalad darro la filahayo inaan sharciga u taala lagu dhaqmaynin iyo tuhun ay kala qabto yay ku kala maqan tahay ayadoo kala maqanna wax badan bay qaybsataa xaqiiqatan haddii ad maamul fiican iyo wax san xamar ay ka socdaan waad la socotaan waxa weeye waa laga dabaaldegaa marka xamar laga dabaaldego Djibouti waa laga dabaaldegaa Jigjiga waa laga dabaaldegaa Garissa cudurkii gala midna midka kale si sahlan buu ugu gudbiyaa waxaasoo dhan waxaan uga dan leeyahay maadaama Soomaalidii iyo caalamkiiba uu isku xirmay annaguna geeska Afrika dadka ugu mudan aynu nahay xagga tirada iyo xagga deegaanka iyo xagga dhulka aan ku noolahay oo strategic uu yahay dhulka aan ku noolahay dadkeenuna dad maskax badan ay yihiin runtii nabadda gobolka wax weyn baan ka nahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho ka dhagax dhigay mashruuca casriga ah ee markaasi muhiim u ah kaasi oo maalgelinaya ganacsatada Soomaaliyeed qayb weyn ay ka qaadanayaan
ganacsato Soomaaliyeed oo markaasi fursad siinaya dalkooda. Madaxweynaha ayaana khudbad ka jeediyay munaasabadda lagu dhagax dhigay mashruucan, waxaana ganacsatada Soomaaliyeed ee soo hindistay aragtidan casriga ah ku bogaadiyay dadaalada ay markaasi ku bixinayaan kobcinta dhaqaalaha, dib u yegleelidda caasimadda cusub, magac iyo sidoo kale wejiga cusub ee dalkeena si uu caalamku u arko wax qaybsigeena, taasoo door ka qaadanaysa taasoo caalamka tusaysa waxqabsigeena, taasoo markaasi door ka qaadanaysa in Soomaaliya ay ku soo hirtaan ganacsato badan oo heer caalami ah. Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu xusin dowladdu uu hogaaminayo ay ahmiyad weyn ay siinayso maalgashiga si dalkeena u gaaro isku filnaansho dhaqaale, waxaana uu sidoo kale uu sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed iyagana yihiin kuwa doorkaasi bixinaya. gobolkan geeska Afrika Soomaaliya ayaa ugu mustaqbal fiican. maalgelin marka laga hadlayna mustaqbalaa laga hadlaa, hawl maanta joogto ma aha, hawl maxaan ku yidhahdaa berri ma sanooyin yaa laga hadlaa. mustaqbalka marka la saadaaliyo gobolkanna Soomaaliya meelaha ugu rajada fiican ama ugu mustaqbalka fiican ayay ku jirtaa. wax badanaa noo qabsan, wax badanna waa noo dhiban yahay. dabcan waxyaabaha oo brandingka nagu haayo waxaa ka mid ah dadkeena ma aha ajnabiga bas ma aha. sida haddaata halkanba looga dhawaajiyey dadka Soomaalida inaanay wax qurxoon yani muddo dheer maadaama ay hawl dhib badan iyo wax dhib badan iyo duruufaha laysan iyo maamullo qaab daran iyo wax walba ay hore usoo arkeen, wixiina runtii aanay wada dhammaanin oo wax ka mida weli ay meelo badan ay ku dambeeyaan. dadku kalsoonidii iyo wixii qurxoona uma jeeda xanuunkii wixii xumaay ee muddada dheer soo jiray ayaa weli haya. laakiin waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha ka baxaan muxuu ahay dalkan mustaqbalkaasna waa leeyahay. waxa wanaaga ah ka socdana waxa caqabad ku ah qaarkeed. caqabadaha haysta waxaa ka mid ah dadkeena waxay u yihiin dadkeena ayaa aad u baafin og xumaanta, dadkeena ayaa aad u baafin og ducfiga ama muxuu ahay waxyaabaha meelaha aan ku liidano, ayagoo mar walba ka aamusayo meelaha aan ku xooganahay, meelaha aan ka qurxanahay, meelaha aan horumarka ka samaynin. dalkeena ayaa wadanka iyo dhaqaalihiisa iyo ganacsiga iyo waxa ka jiro dhan masawir madow ka muujinayo. marka adduunyaduna maanta de fariin iyo meesha soo aragtay bas maahane dhageysi iyo maqala adduunyadu ku shaqeysaa, social media saa lagu wada jiraa, waa la wada arkaya. dalkani inuu dal duruufo gaar ah iyo dhibaato badan soo maray inuu yahay cid inkiraysa ay ma jirto. laakiin 24 sano u dambeysay ee dawladda aan ahayn mar walba horumaraa jiray. 2000 laga soo bilaabo carta markii laga yimiday ilaa maanta la soo gaaro markaad dib u milicsato mar walba horumaraa jiray. bas hal waxaa jiro horumarkaan 24 sano ku sameynay ka badanaan samey karnay. waa meeshaas waa ducfi aan leenahay lana inkiraynin oo maxaan ku yidhaha la qirayo. laakiin caqabadaha yeelay ayaan dadka u qiimaysnayn. caqabada aad iyo aad u waaweyn oo aad iyo aad u dhib badan ayaa soo jiray. maanta hotel 5 star iyo electronic muxuu ahaaye transactions oo lacaguhu ay ku kala baxaan oo sahlan oo faraashi iyo wristband iyo saacad iyo telefoon iyo kaarkiiba xataa laga sii gudbay ayaa laga hadlayaa. maalin aan soo marnay dalkaani telefoon aanu lahayn oo wax qarsoodi ah ama wax private ah aadan ka hadli karin. maalintaas meeshaasaan ka nimid waa soo marnay, maantana meeshaanan maraynaa. telefoon, internet, maxaan ku ihahdaa wax walba yaan maraynaa. bankiska maalin aan joognay raadiyahaas halow hebel may maqlaysaa laleeyahay oo lacagaha loo kala gudbiyo, xawaaladina aanay jirin, bangina warkiisa badah. maantana meeshaasaan maraynaa iyadan marka xawaalada ama banks ama money transfer aad fiiriso ama muxuu mobile moneygu sida uu u shaqeynayo. maanta waxay maraysaa meel hebelaa taleefanka ka damay haddii la yiraaho dadku noloshoodii ciriiriya gasho oo waxay wax ku iibsadaan ma haystaan, lacagtoodii taleefankay ku wada jirtay. suuqa inta tagaan wax ma soo iibsan karaan, maqaayadda intuu tago muxuu kama qadeyn karo taleefanka haddii uu dansan yahay. yacni dhinacaas iyo dhinacyo kaleba amniga isbaaro dhigo, qofka jaabadaha isbaar maxaad haysataa, lacagta ma qaadi kartid. haddaad maxaan ku rahaa 10 kun meel ka soo qaadayso qoryo in laga daba qaato oo lagu ilaaliyo. yani waxa aan soo marno usoo joognay oo gadaal haddaan u fiirino naga keenay waa meel ilaahay aan uga mahad celino oo ilaahay aan uga shukrinaan joognaa maanta. laakiin wax badan aan noo dhiman.
dhalinyaraa jirto runtii aad iyo aad u dadaalayso markaad youtube-ka gasho aad aragta dhalinyarada qaarkood filimada videoyada ay soo duubeen ay soo geliyaan ama xeebta liidale ama xeebta aid iyo maxaan ku yiraahdaa dhulkaas leh ama muxuu ah webiga Shabeelle meel ku dhow oo dalxiis tago la fafadhiyo lagu quraacan lagu qadeynayo geedo ay soo sawiraan waxay muujinayaan quruxda iyo wanaagga taas waxaan marka inaan u sheego dhalinyarada taas ayaa ka click badan kuwa clickta raadinayo ee lacagta ay kaga jirto in click lagu siiyo muxuu ahaay page-kiisa ama bartiisa taas wanaagga ayaa ka click badan wanaagga laga warramo dadka intaasan kula talinaynaa waxaan soo haray mashruuc aad iyo aad u qurux badan lagu faani karo waay dadka qaarkiisa laga yaabo xoolo ajnabiya waxaan lagu maalgeli waxaas su-aasha la isweydiiyay maxaa maanta ajnabigu u maalgelinayaa xoolo u keensanaya Soomaaliya shalay aan u keensanayn iyo darad iyo maxaa sanadii hore iyo 10 sano ka hor 15 sano 20 sano ka hor maxaanu u keensanayn oo maanta u keensanaya in la kala qiimeeyo u baahan yahay maanta Soomaaliya runtii oo aan ahayn iska dheh waa destination of investment dadka investorska meel ay soo wada aadayaan waayo inta mashruuc bandinka maxaan ku raada taagan kulli maxaa dhammaan international standard hotel haday tahay suuqi haday tahay dekada haday tahay airport haday tahay zones ama waxa loo yaqaano economic zone haday tahay يعني wax badana haday tahay khayraadka badda waxa laga yaabaa khayraadka dhanba badda yaan dhihine waxa laga yaabaa Turkida walaalahan Turkida nahay iyo muxuu ahay sahankooda dadka in ay laakiin markay yimaadeen ka bacdi maanta albaabka Soomaaliya waa la wada garaacaya oil and gas mid raadinayo mid kalluumaysi raadinayo mid beer raadinayo mid maxaan ku raadaan minerals iyo khayraad kala raadinayo inta ka dhaxlaa muxuu ahay Soomaaliya albaabkeeda waa la wada garaacaya sida wasiirku uu sheegay in badan oo kamid xeerarkii waxaas dhiirigelin lahaa ee dawladdu laga rabay Soomaaliya way sameysay haday tahay damaanad qaadida investmentiga ninka meeshan damaanad qaaday xeer inuu jiro ana xeer difaacayo hantidiisa oo bari aanay dhicin waa la qaramay waa laga wareegay inaan la lahayn iska bax inaan la lahayn inuu waxa ay u soo noqonayaan oo lacagta ka soo gashay meesha fursad oo dibadda lacagtiisa uu wada bixi karo inuu heli karo ku marsiisan karo asoo dabcan marayo janaalada loogu talagalay ee qaanuunka maaliyadda uu tilmaamayo waxaan leeyahay marka waxaan noo dhiman dadka Soomaaliyeed ee daaraha qurqurxan iyo moolasha waaweyn iyo hoteelada quruxda badan ku leh dalka dibadiisa maanta waxa la joogaa markii ay soo milicsanaayeen Soomaaliya fursaduhuna waxa waaye waa kooban yihiin waxa kooban fursadda mar walba la helaya laakiin waxa la nimba odaya soo martay laba wiil oo abti u yahay ayuu soo martay oo isla degan labada wiil midna xoolo badan oo oodan xoolo leeyahay midna xoolo badan ma laha oo laba saacada yaa u xiran kii xoolaha lahay xeradii uu galay neef ari soo qabo neefka gowrac bisle waxay mashquul u galay abtigi hal mar soo abtigana safar dheer ku yimid waa duruufaysan yahay kii kale guriga ku noqday inta uu fiiriyay xero oo neef ari ka soo qabtay uma taalo meelaha duu fiiriyay wuxuu soo helay xoogaa garoor ayaa guriga ku jira garoorkii soo qaaday garoorkii abtigu u keenay abtiga gaaja haysay garoorkiisu cabay oo garoorkii naftiisa soo xushaday oo baahida darneed ay deysay ayaa wiilka kale oo hilib la carraya keen markaas abtiga ka waa kana markaas waa soo jeedaa ducadii garoor qaatay dhahay ducadii garoor qaatay ninkii soo xaloosh ilaa wax badan lagu shubo kama banaanaba oo muxuu ahaa waa wixii marka hadda waxa leenahay dadka Soomaaliya inay maal gashtaan rabo dadkan imaanaya fursad ay haystaan
fursadahay haystaan wuxuu yahay dhul dawladdu ay leedahay sidaan oo kale in la siiyay haystaan mid kale in loo sii ballaariyay haystaan macaamilka dawliga ee laga rabo oo hadday cashuur tahay hadday adeeg kale tahay in loo fududeeyo laana hadda waxaan ku jirnaa heerkii aan soo jiidanayna dadkaan ku jirnaa laakiin Soomaaliya maalin meel soo gaaray oo aanay waxaas fududeyntaas aanay jirin oo standardka adduunka sida looga dhaqmo maanta adduunka sida looga dhaqmo si ka hooseyso oo xoogaa yar ka jaban inaan u dhaqanno lian dadka saa u soo dhiirigelino waxaan rabaa marka Jibriil wuxuu dhahay 24 bilood ayaa mashruucaani xariga looga jaray oo ku furmaya waa fiican tahay hawl nadiif ah oo qurxoon oo waarta si loo qabtaayo waqti u baahan tahay kusoo ord ma aha waa run waan ka garaabayna dhinacaas laakiin haddana waxaan ku daraynaa 24 bilood waa ugu badan tahay 24 bilood waa ugu badan tahay aan leenahay muxuu ahaa Jibriil iyo teamkiisa by the way markaas saas leeyahay standardka hal la compromise gareeyo oo dabcan maba laga yeeli doono oo nimankaani asad waxa uu abaab magacooda aba asadka boqolaalka milyan meesha gelinayaan waxa uga weyn magacooda ka qiimo badan oo uga muhiimsan marka mana laga aqbali doono laakiin still ruuma jir mar walba oo lagu ciyaari karo oo la mari karo waxaan leenahay ayadoo standardkii la ilaalinayaan hadna waxay dadka ku fahminaya marka mesela hotel 5 star iyo maxaan kula free zone ka aan sheegaynaa qawaaniintiisu dabcan yeelan doona laakiin waxa public Soomaaliga open oo ah oo qofka Soomaaliga uu ku macaamilayo uu imaanayo marabno in wax qawaaniinta dalka u degan iyo dastuurka dalka ka hor imaanayo ninkii investors ee ku fikiraya haddana ha iska iloobo dalkaani haddii shalay lagu ged horta dalkan waxaan rabaa mar walba sharcigoo la jibiyaa problemku eedan weligeed مثلا قضية هذا أو جبريل كده واجه خمرجة دل كان قانون خمرجة إن لقضاء ولا جنع صدق فالصحية دل كان صوما بني دل أجنبي أولو أو جراجر إنه كان جنع صدان أجنبي إنه كان جنع صدان لكن تي أمرك ده بالشكل قفك أجنبي جا أنت سوق قف صومالي سوقاته إنه مالكو فرتوكو جنع صدان بالله توايه دمبه أو دولة أي سيد عفيس أنا وحنا لهناي خمري iyo wixii u dhigmo la mid ah oo isagaas ku kategori ah waa badan yihiin khamri hilib khanziir iyo junni balaayo israaciye oo diintu ay mamnuucday dadka Soomaaliyeed lagala ganacsanayo meel ay joogaanna looma ganacsanayo qofka inta ku dhaamay ma aniga ajnabiga bas aan ka gadayahay Soomaali shaqo ku malaha iyo waxaas iyo ma jirto meel qof Soomaali ba access inuu ima karo arki karo fool xumo inay ilmaheen arkaan ma rabno fool xumo inay ilmaheen arkaan ma rabno intay dalkooda joogaan ku banaanka naga tagayaa wax badan naga soo arko ilaahay idinkiis mugi dalka yimaadaan ayaguna dalkooda la qabsan doonaan laakiin dalkan dalkaas waaye dawlad Soomaaliya ay dawlad u tahay dadku waxa ay leeyihiin in ay u ilaaliso waxa ku xiga waxay tahay adeegi in u fiirso amniga caafimaadka tacliinta biyaha waxaan waa adeeg laakiin usus yani tiirarka mujtamaca uu ku taagan yahay diinta dhaqanka suuban afka maxaan ku raad waxyaabahaas oo dhan waa waxa aan ummad ku nahay oo Soomaali ku noo isku aqoonsanayno sidaas daraadeed mar kale waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo Premier Bank ku dhiiraday aan ka caajisin muddo 10 sano ah daba taagnay mashruucan sidii riyadu sidii u rumoobi lahayd maalintii hore riyay ahayd maanta waa rumooday waxa kaloon ku amaanayaa kuna dhiirigelinayaa mar walba innovative yani afkaar oo ibdaaciyada inay la yimaadaan ATM ki ugu horeeyay Premier Bank keentay waa furnay aniga muxuu ahay madaxweynaha barigaas waa furnay waxa hadda ay ka hadlayaan oo ba Afrikana ku yar ama East Africa aan ka jirin waxa waaye waa innovations ama muxuu ahay hal abuur kale oo macno leh waay kan waa kamid 5 star hotelki ugu horeeyo brand international leh inuu yahay kuwa kale waa soo socdaan
qofka marka dalka micnaha u samaynayo waxa waaye waxa micnaha u samaynayo inaan aqbalno waa matalan waxaa jirta dalkeena hadda waxaa laga dhisayaa ka socda saldhig dayax gacmeedka laga tuuro nima ii yimiday maalin saaxiib ay la sheekaysan wuxuu dhahay mashruucan dhowr bilyan oo dollar ku bixaysa dowladda Soomaaliya maxay ka qaadatay maxaa ka soo galay marka waa run in dhinac markii laga fiiriyo dhinaca wasiilka istaagay laakiin mashruucu de aqoon iyo innovations iyo sanadkiisa maxaa shaqo iyo wax badan ka dhalan doona iyo aqoon badan dhalinyaro badan wax ku baran doonto heshiiska lagu soo waxa kamid ah aqoonta Soomaalida maxaan ku leeyahay jaas in kor loo qaaday iyo wax kale iyo masaalix kale oo badan ka dhalan doonto adeegyo badan way jiraan laakiin ninka waxa uu jawaabay lacagtaas helayna iyo waxa saarno dhalan doona iyo intaas shaqo noogu heli doonto ma dhehine aniga Soomaaliya satellite laga ganay oo hawada sare ka aaday dhowr bilyan oo dollar iga qiimo badan taasaan rabnaa inaan gaarno haddaatana Sheekh Cali uu ka hadlay micnaha ay ku fadhido in dhulka la camiro oo hanti la geliyo nolosha dadka isbedelay haybada iyo muuqaalka iyo waxa isbedelayo dhaqaalaha uu lafsidiisu waa kugu kordhaya markaad asad leedahay investment meel ku taalo adduunyada iyo Soomaalida kala dhamaan way ku aaminay marka dadka Soomaalida meel kasta joogaan waxaan leeyahay dadku waxa intaas dheer wax isku darsiga inaan wax isku darsanaayo waxay keenay wax badan inaan nin walba ka siyar oo kaligiis inta tooxdo oo guri yar oo macna lahayn oo dhisayo markaan wax isku geysano waxaan sameeysan karnaa wax badan haddii kale de martuun baan ahaanayna daarti dheer oo magaalada ku taalo shirkad hebel oo ajnabi ah iskale dekada muxuu ahay wadan hebel ah iskale oo maal gashaday airportka na wadan hebel kala iskale strategic assets kana dawladuhu lagama kaftamo waa national security way dekad iyo airport iyo powerka iyo biyaha waxyaabaha oo ay dawladdu aanay ka kaftamin waaye publicu haddaanay dawladdu wada lahaanayn xataa waa inay qayb ku yeelataa haddaanay wada lahaanayn waa inay regulatory system uu jira ilaalinayo lianna dadka noloshooda waxa taabanaya waaye ninka ganacsadaana si kastoo u fiican yahay faa'iido u daba socdaa ka maqan $2 inuu faa'iido meesha suurtagal ka tahay 10 inuu ka faa'iido ka sii jeclaa lahay marka cidda ilaalinayso oo xakameynayso oo controlaysa mar walba qawaaniinta waay qofka ma aha wasiirka ma aha muxuu ahay generaalka iyo corneelka ma aha xildhibaanka ma aha madaxweynaha ma aha qawaaniinta dalka u degan waay waa sababta aan xoog u saaraynaay wax kasta oo jiraahay qawaaniin xeerisa in dalka loo yeero dadka Soomaaliyeed ha isku kalsoonaadaan maanta meel fiican aan maraynaa waa fiicanna aan ka fikirno oo waliba aan u qaylino waxa dadka wada taabanayo dawladda Soomaaliya iyo qawaaniinteedu baahida dadka qof uma address gareyn karno qof walba baahidiisa inay dawladdu isku jimeysameeyay karto laakiin dawladda mujtamaca waxa danta u ah ee guud ay qabanay amni haday tahay dadku ka wada dhaxeeya tacliin haday tahay dadkay ka wada dhaxaysa dawladdu ay bixinayso caafimaad haday dawladdu heli karto bixinayso dadku ka wada dhaxeeya wadooyinka iyo maxaan ku raada meelaha dadka public gardenska iyo waxa dadkay ka wada dhaxeeyaan dawladdu meelaha ay mas'uuliyadda ka saaran tahay waa sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed dawladnimadan dawladdan ma dhahayo sideedaba dawladnimada ha ku kalsoonaadeen dawladnimadaas oo dabcan bini aadan ay waxana marna khaldamaysa marna saxanaysa laakiin itijaaha aan u soconaay dhinacan u jeednaay dhinac sax ah dalkan inuu amni helo oo ammaan noqdo oo qofka Soomaaliga ah oo kalsooni gurigiisa ku seexdo hadduu xataa waxba haysano ku dhax qadaya xataa asoo kalsoon inuu gurigiisa seexdo inuu ku dhax qadinna insha Allah taala mas'uuliyad kale weyn oo dawladda saaran waayo risqa Ilaahay ayaa bixiya laakiin dadaalkeedi iyo fududeynteedi dawladda inay timaado rabo waayo dawladnimada dadka ku kalsoonaadaan wajiga xun ee qof shakhsi oo tiisa waayay oo dawladnimada u yeelayana gacanta laga qabto adiga loo kaadi hal yiraahdo waxaan ku soo guraanadayaa
xikmad maalin dhaweed nin odayo professor aan ka maqlay oo ka dhageystay anigu ilaa weli ardayaan ahay lagama duqoobo ardaynimade yaan rabaa inuu kasoo gunaadado oo hadalkii u dambeeyay hadda ka hadlayana ku leh raad ku leh waa maxay waa nin quman uweyntiisa nin qaldan qabashadiisa iyo nin qaajaysan quudintiisa bulshadu saddexdaas go-aana hadday gaarto oo ninka qaldanna ay gacanta qabato intuu doono darajadiisu ha ahaatay ninka qumanna ay taageerto ay xoojisay tira war waa quman yahay dhinacu u socdana waa dhinac saxe hala taageero ay tira keenna gaajaysanna inaan quudino aan ku fakarno oon isugu tagno ummadaana ummad macno leh noqonay ummadnimadeeduna ay macno yeelanaysay noqonaysaa guud ahaan inta ayaa lagu soo gabagabeynayaa barnaamijka xogta hiiraan weyn Mustafa Al Cabdi ayaa soo jeedinaya Maxamed Bareere waa uu farsameynaya intaanu barnaamijkan kiisa xiga aynu ku kulmi doono nabadgelyo